waa maalin khamiisa 3 May sanadka 2018 saacada Afrikada barina waa 5tii galabnimo qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah kooxda gooni ugu hoosada Isbayn ee taa oo dagaalamaysa 50 sanadood ayaa sheegtay inay hub ka dhigtay oo ay kooxdiina kala dirtay kalkaalisa caafimaad oo Jarmalka ku dhalatay oo lagu afduubtay magaalada Muqdisho gabadha lagu afduubtay gudaha dhismaha xarunta ICRC ee magaalada Muqdisho waxay u dhalatay dalka Jarmalka waxa afduubka geystay xubno ka tirsan kuwii u shaqeynaya ama ilaalada ka ahaa xaruntaasi shir ganacsi oo 2 maalmood soconaya u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga oo ka furmay magaalada Istanbul shirkan wuxuu ku saabsan yahay in ay ganacsatada labada ganacsato ay ka wada hadlaan arrimaha xagga ganacsiga maalgashiga xagga horumarinta teknolojiyada iyo xagga suuqgeynta banka adduunka oo mashaariic ka hirgelinaya 6 deegaan oo ka tirsan gobolka Gaarisa maanta oo ay ku beegantahay 3 May ayaa maalinta saxaafadda caalamka loo asteeyay waxaan ku eegi doonaa dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiinta Soomaalidu wasiirka gaashaandhigga iyo madaxda laamaha amniga ee dalka Madagaskarna waxay ugu baaqeen dawladda iyo mucaaradka inay xal u helaan khilaafka siyaasadeed Itoobiya siiba dhulka Soomaalida oo fatahaadu ay ku keentay dhibaatooyin waaweyn wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq anigoo aadan Salamiinana idin soo jeedinayo dunida iyo maanta marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Maxamed Maxamuud Cadde mahadsanid Salimin ururka xagjirka ee baaska ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan ETA ayaa xaqiijiyay inay ururkooda kala direen taasoo soo afjaraysa 10 sano oo ay u dagaalamayeen xuradooda si ay uga qaataan waddanka Spain bayaan ay ETA soo saartay ayaa lagu sheegay in la kala dirayo ururkaasi isla markaasna la soo afjarayo dhammaan howlihiisa siyaasadeed ra'iisul wasaaraha waddanka Spain Mario Rajoy ayaa sheegay in aan cidna dambiyadii ay galeen aynan ka baaqsan karaynin oo lagu maxkamadeynayo ururkaasi ka tirsan ugu yaraan 100 qof ayaa geeriyooday kadib markii ay dabaylo boor wata ay ka dhaceen qaybo ka mid ah waqooyiga waddanka Hindiya dadka dhintay intooda badan ayaa waxa ay ku sugan yihiin gobolka Uttar Pradesh sarkaal sare oo ka tirsan gobolkaasi ayaa sheegay in deegaanada ay aadka saameynta ugu yeelatay dabayshaasi ay tahay deegaankaasi waxaana sidoo kale la sheegayaa inay tahay dabaysha ugu xumeyd ee muddo dheer Hindiya ka dhacda dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegayaa inay guryahooda hurdeen guryahooduna ay ku soo dumeen shirkadaha dahabka qore ee dalka Koonfur Afrika ayaa saxiixay heshiis taariikhi ah oo ballan qaadaya in magdhow la siiyo 10,000 oo ka shaqayn jiray qodista macdanta kuwaas oo la sheegay in xanuun xagga sanbabka uu haleelay waxaa la filayaa inay tahay tallaabadii ugu weyneyd abad ee dadkaasi ay xuquuqdooda ku helaan haddii ay ansixiso maxkamadda sare ee dalka Johannesburg kadib markii ay muddo dheer gurigeeda ku xirnayd 8 sannadood magaalada Beijing ayaa xaaskii uu ka dhintay ninkii ku guulaystay abaalmarinta Nobel Louis Chambo ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay gurigeeda ku dhex dhimato Louis Chambo ayaan wax dambiya lagu soo oogin hase ahaatee waxa ay ku xirneed gurigeeda ilaa iyo inta odageeda uu ku guulaystay abaalmarinta loo yaqaano Nobel sanadkii markuu ahaa 2010 hogaamiyaha mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda Armenia Nikol Pashinyan ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu ballan qaaday inuu taageerayo waxa ay ku tilmaameen musharaxa ay dadweynuhu rabaan oo ay u doonayaan jagada ra'iisul wasaaraha waxaa muuqata qofka uu ka hadlayay inay tahay isaga laftirkiisa baarlamaanka ayaa cod bixin doona maalinta Talaadada maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee suxufiyiinta ayaa hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dhaqanka waxa ay ka digaysaa in suxufiyiinta meelo badan caalamka ka mid ah oo cadaadis ku saaran yahay shaqaalaha BBC-da ee xaruntan BBC London ayaa taageeray saaxiibadooda ku hadla afka Beershiyaanka kadib markii ay
gudbiyeen cabashooyin la xiriira in xukuumadda iiraan ay maxkamadayso. waxaa sidoo kale shaqaalaha b b c da ay 1 daqiiqa u aamuseen wariye ka tirsanaa b b c dan shaah axmed shaah oo maalintii isniintii lagu dilay dalka afghanistan. halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa b b c london. mahadsanid maxamed. halkani waa london. aan ku bilowna magaalada muqdisho. xalay rag hubaysan ayaa waxay afduubeen gabar kalkaalisa caafimaad ah oo jarmalka u dhalatay oo u shaqaynaysay hay-adda ICRC. waxaana sida saraakiisha amniga ay dowladdu ay sheegeen soconaya baaritaano xoog leh. waxaase la og yahay in cidda wax qafaalatay ay yihiin rag hubaysan oo u dhacay dhismaha hay-addaasi kadibna kala baxay gabadhaas oo meel ay la aadeen aan weli la aqoonin. wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa qadka haatan si toosa ugu jira. ibraahim, bal wararkaasi ugu dambeeyey noo faahfaahi. aadan, weli ciidamada ammaanku waxay ku guda jiraan baaritaanada la xiriira sidii loo ogaan lahaa loona soo heli lahaa gabadhaas u shaqaynaysay hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC. gaar ahaan waxay ahayd gabar kalkaalisa ah u dhalatay wadanka jarmalka. ciidamada ammaanku tan iyo xalay ayay baaritaanadaasi ka wadaan, waxaana xaafadaha qaar aad ku arkaysa ciidamada ammaanka oo aada loo soo badiyey oo dariiqyada ama jidadka taagan. sidoo kale kooxahooda sadoonka ayaa sidaasoo kale ku lug leh baaritaanka oo raadinaya gabadhaasi. goorsii horeysay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdicasiis cildhibaan ayaa b b c da u sheegay in la aqoonsaday ninka hogaaminayay kooxda afduubka geysatay oo uu ku eedeeyey inay ka mid ahaayeen shaqaalaha xarunta ama ilaalada xarunta hay-adda ICRC oo aan sidaa uga fogeyn isgoyska kilomitr waa daarta soobe ee ku dhow isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho. gabadha lagu afduubtay gudaha dhismaha xarunta ICRC ee magaalada muqdisho waxay u dhalatay dalka jarmalka. waxaa afduubka geystay xubno ka tirsan kuwii u shaqaynaya ama ilaalada ka ahaa xaruntaasi, waxaana hogaaminayay ninka lagu magacaabo maxamuud maxamed caras. markii ay afduubka maqleen islamarkeeda ciidamada amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxay gaareen dhismihii xarunta ICRC ee magaalada muqdisho, waxayna xabsiga u taxaabeen ama u dhaadhiciyeen dhammaan ilaaladii xaruntaas ku sugnayd waktigii uu dhacayay afduubkaas isaga. sidoo kale ciidankeena waxay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan gaarigii afduubka lagu fuliyey. baaritaanku waa socdaa. waxaan ka codsanaynaa dhammaan qaybaha bulshada soomaaliyeed inay nagu soo wargeliyaan, gacanna nagu siiyaan sidii aan si nabada ugu soo celin lahayn gabadha u dhalatay dalka jarmalka. kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdicasiis xildhibaan oo goorsii horeysay ii waramayey. waxaa socda dadaalo badan oo ciidamada ammaanka iyo dowladda federaalkuba ay ku lug leeyihiin sidii gabadha xorriyadeeda dib loogu soo celin lahaa. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka oo isna arintan ka hadlayay ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin arintaasi. wuxuuse ka hadlay afduubka gabadhaas jarmalka u dhalatay lagu geystay magaalada muqdisho. xukuumadda federaalka waxay xushmaysaa gaar ahaanshaha, sababtaas darteed ayaynan uga hadli doonin kiiska lahaystayaasha. laakiin aan hoosta ka xariiqo inaan aad u qadariyo dadka oo dhan, gaar ahaan dadka jarmalka ah ee dibadaha ka shaqeeya ee dadka kala caawiya oo noloshooda khatarta geliya. anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka waxaan leeyahay waxaan aad u xurmaynayaa dadkaas, waana midaas tan ay xukuumadda jarmalka u dareemayso inay ka go'an tahay inay caawiso dadka jarmalka ah ee dibadaha ka shaqeeya. kaasi wuxuu ahaa heko joseph mas, wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka jarmalka oo ka hadlayay gabadha jarmalka u dhalatay ee muqdisho xalay lagu afduubay. aadan, guud ahaan markaad eegto falcelinta ka imaanaysa dadweynaha magaalada aad bay uga xumaadeen. afduubkan waa mid ku cusub magaalada markaad eegto dhowrkii sane ee ugu dambeeyey oo aan lagu arag afduubyada noocan ah ee loo geysto shaqaalaha ajnabiga ee hay-adaha samafalka u shaqeeya. dadka markaad la sheegaysato waxay kuu sheegayaan inay tahay arin aan la aqbali karin, waxayna dowladda iyo hay-adaha ammaankaba ka codsadeen in si degdega gabadhaasi xorriyadeeda dib loogu soo celiyo, islamarkaana cadaaladda la horkeeno shakhsiyaadkii ku lugta lahaa afduubka gabadhaasi u shaqaynaysay hay-adda laanqeyrta cas ee ICRC. kaasi waxau ahaa wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka si toosa ugu jiray. dhinaca facebookana dhegeystayaasha ra'yigooda ka soo dhiibtay qodobkaasi waxaa ka mid a maxamed axmed bulaale oo taleex ka soo qoray. waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay afduubka loo geystay gabadhaasi samafalka ka waday dalka Soomaaliya.
waana dhacdo ceeb ku ah buu yidhi dowladda, waana in laga daba tagaa kooxdii afduubkaasi geysatay oo la soo daayaa si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta u dhashay dalalka shisheeye ee samafalka ka geysanaya dalka. Cabdi Geesi oo ku sugan Boorame waxa uu leeyahay dowladda Soomaaliya mar haddii ay sheegtay cidda ka dambaysay cidda afduubatay gabadhaasi lagu afduubtay magaalada Muqdisho iyada oo u shaqaynaysa ICRC-da waa war wanaagsan, waxaase looga fadhiyaa dowladda in aanay ka fariisan oo ay gabadhaasi xorriyaddeeda u soo celiso lana xisaabtanto ciddii falkaasi geysatay. Kuwaasina waxay ahaayeen dhegeystayaasha dhinaca Facebooka iyo ra'yigooda ku soo dhiibanayay. Kooxda mintidka ah ee gooni ugoosadka ee dalka Spain ee gobolka Basque ka dagaalamaya halkaasi 50 sannadood ayaa waxa ay wadeen olole waalan oo markaasi haatanna waxa ay sheegayaan inayba hubkii iska dhigeen oo kooxdiina ay kala direen. Kooxdan oo magacooda lagu soo gaabiyey ETA ayaa waxaa loo haystaa inay ka dambeeyeen 830 qof oo la dilay intii ay kooxda ololaha hubaysan ay ku jirtay. Dowladda Spain waxay hadalkaasi ETA ku sheegtay barabagando aan macno lahayn. Maxamed Maxamuud Cadde ayaa ila fadhiyay stuudiyaha oo umuurtaasi isha soo mariyey. kooxdan Basque ayaa waxa ay u dagaalamayeen waqooyiga Spain dhul ka mid ah iyo koonfurta galbeed ee Faransiiska, waxaana la aasaasay sanadku markuu ahaa 1959 markaasuu generaal dictator ah ama kaligitalis uu ka talin jiray waddanka Spain oo la yidhaahdo Franco. ETA ayaa waxaa lagu eedeynayaa in ay geysan jireen dil iyo afduub intay u dagaalamayeen madax bannaanida gobolka Basque. waxaa la sheegayaa dadka ay dileen in tiradooda ay gaarayso ilaa 829 qof, waxaana la sheegayaa waxaa ugu caansanaa dilalka ay geysteen weerarkii bambaano ee magaalada Madrid ka dhacay sanadkii 1973 oo lagu dilay ra-iisul wasaarihii markaasi waddankaasi. sidoo kale waxaa ururkaasi lagu eedeynayaa in ay afduubi jireen ganacsatada iyo dadka kale oo ay isleeyihiin waxaad ka helaysaan xoolo aad ku maalgelisaan halgankooda. warkan soo baxay maanta oo khamiisa ayay ku sheegeen in ay ururkaasi kala direen oo ay joojiyeen dhammaan howlahoodii xagga siyaasadda. dhanka kale waddanka Spain ra-iisul wasaarihiisa xisbiga talada haya Mario Rajoy ayaa sheegaya in kala dirkooda uu yahay wax aanan ahayn loo qaateen islamarkaasna ay tahay sharqan iyo propagando. wuxuuna ballan qaaday in dembiyadii ay galeen ay tahay in lagu fakan oo lagu maxkamadayn doono. ETA ayaa waxa ay sidoo kale sheegaysaa in hadafkii ay lahayd ee halganka ahaa ee shacabka ay u igmadeen in ay u celisay shacabkii oo hadda lasoo gabagabeeyey dagaalkii ay muddada dheer ku jirtay. waxayna ka mid tahay ururada ugu cimriga dheer marka la fiiriyo Yurub, kana dhex dagaalami jiray. Faransiiska iyo Spainna waa iska kaashan jireen sidii ururkaasi loo jebin lahaa. haddana waxaa muuqata in ay ku dhawaaqeen oo waddanka Switzerland iyo Spainba ooga dhawaaqeen in ururkaasi gabi ahaanba la kala diray. Maxamed Maxamuud Cadde aad buu mahadsan yahay. halkaad naga dhegeysanaysaana waa London. wasiirka gaashaandhigga iyo madaxda laamaha amniga ee dalka Madagaskar ayaa ugu baaqay dowladda iyo mucaaradka inay xal u helaan khilaafka siyaasadeed ee jasiiradaasi ka taagan oo dalkaasi qalqalgelin kara, gaar ahaana doorashada guud ee Madagaskar ka dhici doonta sanadkan. mucaaradkuna waxay bilaabeen in madaxweynaha dalka ay ugu baaqaan inuu iscasilo. Mary Harper ayaa soo qortay warbixintan, waxaana soo jeedinaya Fardowse Maxamed Cilmi. laamaha ammaanka oo soo saaray bayaan kulul ayaa ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeedo inay qaadaan mas-uuliyadda ficilada ay samaynayaan ayna si degdeg ah xal u gaaraan. laamaha ammaanku waxa ay shacabka Madagaskar ugu baaqeen in aysan ogolaanin in siyaasiyiintu ay ka caqli badiyaan. mudaharaadyadii dhacay 2 toddobaad ee u dambeeyey ayaa qayb ka ah xiisad siyaasadeed oo ka taagneed jasiiradda dalkaasi. waxayna u muuqataa in dulqaadkii uu kasii dhammaanayo milatariga dalkaasi, ayaana lagu yaqaanaa in milatarigu uu inqilaab sameeyo. ilaa iyo haatan 2 ruux ayaa dhimatay kadib markii ay ciidamadu rasaas ku fureen dad mudaharaad dhigayay maalintii koowaad ee dibadbaxyadu ay bilowdeen. qaramada midoobay ayaa ergey u dirtay Madagaskar si ay gacan uga geystaan xalinta xiisadda ka taagan dalkaasi. warka ka soo baxay milatariguna waxa uu muujinayaa in waqtiga uu ku socdo siyaasiyiinta dalkaasi.
fardowse macalin aad bay u mahadsantahay. waa fardowse cilmi aad bay u mahadsantahay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa London. waxaa maantay magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya lagu daahfuray lacag uu baanka adduunku siinayo 6 deegaan oo ka tirsan gobolkaasi. lacagtan ayaa loogu talagalay mashaariic horumarineed oo bulshada deegaanadaasi ay ka faa'iideysan doonaan, iyadoo gobolka waqooyi bari ee Kenyana lagu tilmaamo gobolada ugu saboolsan dalka oo abaaro ba'anina ay ka dhaceen. maxamed guuleed waa agaasimaha guud ee hay'adda horumarinta gobolka. waxa uu waramay wariyaha BBC da Faadumo Macalin, waxaana marka hore ay weydiisay mashaariicda loogu talagalay in lagu hirgeliyo gobolkaasi. lacagtan hadda loo qorsheeyay oo barnaamijka maanta inta u joogno waxay dhan tahay lacag 1 bilyan 200 milyan oo dollar ah. lacagta Kenya markii loo sarrifo ku dhow 120 bilyan oo lacagta Kenya. lacagtaasna waa lacag ay maaragtay dawladda Kenya iyo hay'adda bangiga adduunka World Bank ay ku wada heshiiyeen in loogu sameeyo horumar goboladan hadda iyo kountiyada waqooyiga waddankan ku yaala. waxaana munaasabadan maaragtay ku lug leeyadana hay'adda loo yaqaano FCDC Frontier Counties Development Council oo ah isu taga 8 county oo maxaa la dhahaa ku yaala waqooyiga waddankan. intee deegaan ayaa marka lacagtan loogu talagalay, sidee ayayna u kala qaybsanayaan? lacagtan waxaa loogu talagalay 10 county, waxaana loo qaybinayaa county ahaan looma qaybinayo, waxaa loo qaybinayaa mashruucyo kala duwan oo countiyadoo dhan taaban kara. marka mashaariicdu waa kuwa noocee ah? tusaale ahaan lacagtan xooggeeda 500 milyan oo dollar waxaa loogu talagalay dhismaha wadada ka bilaabanaysa Isiolo oo aadaysa ilaa Mandera, qayb ka mid ah inay dhisto. lacagaha kale oo soo haray ilaa 700 milyan oo kale waxaa loo kala qaybinayaa mashruucyo kale oo sida hadda biyo-gelinta, khusuusan labada county oo Wajeer iyo Garissa. waxaa sii dheer barnaamij kale oo isagana qorshaha ku jiro oo la dhaho Kenya Off-Grid Energy Support Program oo ah dhinaca korontada maaragtay cimilada ama qoraxda laga soo qaato. iyadana in la geliyo countiyada dhan baa maaragtay u siman, waana lacag 150 milyan oo dollar ah. waxaa jirta barnaamij kale oo la dhaho beeraha maaragtay horumarinta casriga cusub. countiyadan maadaama in countiya oo inta badan dhulku maaragtay iska yahay dhul jiilaal inta badan oo roobku ku yar yahay, marka sidii beeraha iyo wax soo saarka xoolo dhaqatada iyo loo xoojin lahaa. waxaa lacagta haddana sii dheer lacag loogu talagalay iyadana 150 milyan oo dollar ah 3 county oo maaragtay Wajeer, countiga Garissa iyo countiga Turkana oo meelaha qaxootiga ee degaan si loogu kaalmeeyo dadka deegaanahaas jooga oo qaxootiga iyo dadka maaragtay rasmi ahaan u degan oo dhulka u dhashay. marka waxaa jirta oo kale lacag la yidhahdo dana safety net oo yani lagu caawinayo dadka oo masaakiinta maaragtay oo saboolka ah, ayagana maaragtay quudiyonkoodii iyo bil walbaba in loo shubo dadka dhibaataysan. marka waa mashruuc weyn. lacag noocaana weligeed goboladan ma soo gelin. marka ugu horeysaan aragno yani mashruuc intaa leego yani qiimihiisa uu yahay. wahagaagkaasi waxa uu ahaa agaasimaha horumarinta ee gobolkaasi Gaarisa uu waramayay wariyaha BBC da Faadumo Macalin. wahagaag kooxa inoo soo socda warbixin ku saabsan koox saxafiyiin gabdho ah oo dhaliilay warbixin iyo cilmi baaris ay gabdho kale oo saxafiyiin ay ku soo bandhigeen magaalada Muqdisho ay ku sheegeen in maamulayaasha warbaahinta ay gabdhaha ku xiraan in ay markaasi ay u galmoodaan. hase yeeshee maantay waa maalintii saxaafadda adduunka, waa 3 May. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta u qaabilsan dhaqanka, sayniska iyo tacliinta ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNESCO ayaa waxa ay ka digtay in wariyaasha meel walba oo cadaadis sii badanaya laga saarayo. warbixinta ay laantu soo saartay oo lagu beegay maanta oo ah maalinta saxaafadda adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in dalal badan wariyaashaasi gacanta loola tago oo la weeraro oo la caayo oo lagu tacadiyo, taasina ay khatar ku tahay xorriyatul qowlka. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalka aadka looga dayriyo tacadiyada wariyaashaasi oo in ka badan 20 wariye lagu dilay 10kii sano ee lasoo dhaafay, marka laga soo tago inta mar ee dhowr jeer la xiray wariyaashaasi iyagoo waajibkooda gudanaya. haddaba waxaan qadka taleefankan kula xiriirnay Maxamed Xuseen Jaamac oo ku magac dheer Rambo, tifatiraha wargeyska Geeska Afrika ka soo baxay magaalada Hargeysa, oo aan weydiiyay bal dhibaatooyinka saxafiyiinta loo geysto. tusaalahaan waxaa sanadkii hore waxaa dhacay 38 saxafi ayaa sida warbixinaha soojo ka muuqata la xiray. 35 kamid waxaa la sii daayay arrintooda la dhameeyay maxkamad la geeyay. 3 kamid la xukumay. maantana waxaa xabsiga ku jira Somaliland 1 saxafi oo la yiraahdo Maxamed Dirir oo maxkamadda gobolka Hargeysa ku xukuntay sanad iyo 6 bilood oo xarig ah. waxaa sidoo jira wargeys oo xayiran oo ka mid yahay wargeyska Haatuf
xukuumadii hore ee axmed siiraayo dacwad ka ogtay kadibna la xayiray markii uu baahiyey warbixino ku saabsan musuq maasuq uu soo bandhigay 3 wargeysa kaloo laydhaha hubstab codka shacabka iyo xogayaal ayaa iyaguna jiro oo xayiran arrimo dhinaca liisanka la kala wareegista ah sanadkan iyagana waxaa dhacay 13 keis baa dhacay sanadka 2010 11 kamida waa la dhameeyey iyada maxkamadda gaarsiin baa la dhameeyey 2 ayay maxkamadda xukuntay 2diina waa loo iibiyey sidaas oo tahay waxaa iyaguna jira dad kale oo aan saxafiin hayno u xiran qoraallo ay ku qoreen baraha bulshada dadkaasna ka mid tahay ciima abwaan qorane iyo wiil laydhaa maxamed kaysi oo isna hargeysa ku xiran oo labadaba loo haysto qoraallo ay facebook ku baahiyeen waa gartay marka bal maxaa markaasi horumar ahoo la taaban karo oo la gaaray aad is leedahay waxaa la gaaray in ilaa hadda sida muuqata sanadkii hore iyo sanadkan faraq baa u dhexeeya saxafiyiinta la dhibaateeyey ama la xidhay inkastoo sanadkaani weli dhamaan haddana sanadkii horena 18 dhacdo ayaa dhacdo saxafiyiin la xidhay oo qaarkood la sii daayay badankooda intaan maxkamadda la geeyey waxaana soolja warbixinteeda ku sheegtay u dambeeyey soo saartay in dhacdooyinkan dhacay beriyii u dambeeyey qaarkoodna khalaad ay saxaafaddu lahayd ahayd qaarna khalaad ay dowladdu lahayd ahayd taasoo keentay in 13 dhacdee sanadka dhacay 11 kamida la dhameeyey iyadoo maxkamad la gaartay waxaa laakiin muhiim ah in saxaafadda somaliland ay ku shaqayso cabsi la-aan iyo la-aan ka dhicin dhibaato kale aan loo geysan rainbow mahadsanid magaalada garowana waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir saxafiyiintu ay la yeesheen madaxda laamaha amniga iyo garsoorka ee Puntland oo lagu soo bandhigay tacdiyada ay tirsanayaan wariyaasha iyo eedaha loo jeedinayo marka ay iyagu la tirkooda wararka tabinayaan natiijadii shirkan waxaanu ka wareysanay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland maxamed daahir cayn sane oo wariye axmed cawil jaamac warramay sida loo abuuri lahaa jawi nabadgelyo ku shaqeeyaan saxafiyiinta waxaanu isugu keenay shirkan warbaahinta booliska wasaaradda warfaafinta xafiiska xuquuqul insaanka oo difaacaha xuquuqul insaanka looyaro guddiga sare ee garsoorka oo maxkamadda sare ayaana la joogtay iyo guddiga sare ee warbaahinta Puntland shirkan markii la wada hadlay oo booliska iyo saxaafadii ay soo fariisteen la soo bandhigay kiisaska hore oo dhacay xarigan sifada sharci aan loo marin boolisku ay ku cawdeen oo yiraahdeen warda anaga waana laga sareeyaa waxa weey waana la soo amra maxkamadihii maxaad u mari weydeen maxaa loo soo eedeyn waayo qofkii u dhici weedo qof intuu mas'uul wuxuu dhibsaday qoraal uu dhibsaday intuu maxkamadda uu yiraahdo warwariye hebel ba aniga magacdil igu sameynaya ama war been iga sheegay waxa la sharcigu muxuu ka qaba maxaa loogu ordayaa maxaa la yiraahdaa xariga loogu ordayaa waxa soo baxday xalal kale ku qoran xeerka warbaahinta Puntland guddiga sare warbaahinta waxa kamid ah waxyaabaha shaqooyinkiisa inuu ganaax ku rido cidii lagu helo magacdil ama meel kaga dhacay mas'uul dawladeed oo ilaa $1500 laga qaaday waa garta marka hadda shirabkii halkan waa ku soo gabagabeyseen waxyaabaha ka soo baxay maxaa kamid ah waxyaabaha ka soo baxay waxa weeye in la wada shaqeeyo statement baan soo saarnay qorshe lagu shaqeeyo booliska iyo warbaahinta ugu dambeyntii waxa noo soo baxday in la helo helanayaal volunteer ah oo u taagan badqabka wariyaha Puntland oo ka kooban saxaafadda bulshada rayidka CID-da iyo ururka looyarada afartaas xubnood ayaa isku imaanaya waxay daba galayaan kiisaska la xiriira wariyaasha waxa kale oo ay noqonayaan meel waxa weeye wariyaashu marka ay cabsi soo wajahdo ama maxaa la yiraahdaa handadaad ay dareemaan ay ku sirqalsadaan maadaama daraasadii meeshan ku soo bandhignay 2016 Soomaaliya dhan ka sameynay ee noo soo baxday in wariyaashu aysan kalsooni badan ku qabin marka ay waxa weeye handadaad dareemaan ama ay baqdin dareemaan inay u tagaan laamaha ammaanka oo isleeyihiin waa ay faafaysaa maanta oo kale inta badan saxaafaddu waxay soo bandhigaan tacadiyo kala duwan ay la kulmeen wax tacadiyo aad xasuusan tahay oo Puntland wariyaasha hadda loogu geystay ma jirta Puntland duwaanahan dambe way xasilooneed laakiin Soomaaliya guud ahaan iyo halkanba waxa way ka dhacay dilal Soomaaliya waxa lagu tiriyaa warbixinada warbixinada caalamiga ka soo baxay hay'adaha ay ku tiriyaan mid kamid ah dalalka ugu liita markay noqoto madax banaanida maxaa la yiraahdaa saxaafadda iyo xorriyatul qowlka sida daraadeed waxa way markasta waxa bartilmaameed ah saxafiyiinta waxa weeye Soomaaliya ka sokow dilkaas waxay la kulmaan cagajugleyn handadaad joogto ah iyo waliba xarig aan loo marin sifa sharciyeed munaasabada aan ugu soo beegnay maalintaas waxa weeye World Press Freedom Day aan ugu soo beegnay shirkan booliska oo badana ah meelaha iskaga dhacaan warbaahintii booliska cidda sida tooska isku taabtaan ah oo si meesha looga saaro xariga sharci darrada ah oo qofkiiba intaan markii la soo eedeeyo qofkii loo yeero si tartiib iyadoo aan la jijidan oo la qaraacin oo lug iyo gacantoona laga jabin xabad lagu ridin la yiraahdo arintaas lagu soo dacweeyay ka soo garbax maxkamad lala fuulo caysane oo u waramayay axmed cawil wariyaasha Soomaalida ka shaqeeya waxa kamid ah qaar aanu xilixaadkoodu wada dhameyn oo qaybaha warbaahinta ka shaqeeya waxaana kamid ah Cabdifitaax Xasan Axmed oo kalgacal ku magac dheer oo aan wax arag mudana ka shaqeynaya magaalada Muqdisho caqabadaha uu la kulmo iyo sida uu hawsha u guto ayuu uga waramay wariyaha BBC-da Xasan Cali Gelle
anoo maarata aragla oo naafo ah ayaaba dabcan si buuxda uga shaqeeyay weliba waxaan aaminsanahay heer fiican inaan ka gaaray maanta tacadiga maanta ka jira soomaaliya marka la fiiriyo waxa waaye ama xagga saxaafadda ku salaysan runtii qofna gaar uma aha aniga markaan ahay cabdistax ahaan runtiina si gaara wax aniga igu kooban ma aha laakiin caqabad waxaan aaminsanahay dhammaan dadka maanta ka shaqeeya saxaafadda soomaalida way la qabaan sababtoo ah mar haddaad wado marayso oo wadadii ay xiran tahay oo aan lagu dhahin qofkan waa qof saxafi ah waa in la sii daaya oo lagu leeyahay iska noqon lagu leeyahay adigina aad shaqo nin bulshadii u haya aad dabcan waa ka wada simanahay dhibaato sidee baad xaruntaada shaqada ku tagtaa taa nafteeda soo caqabad ma aha way salanta inaan shaqada tago sababtoo ah gaariga dadku raacaan uma dhinac waxaan wana tagaa shaqada runtii sidee baad uga qayb gashaa shirarka jaraa'id oo adina wararkaas usoo tabisa xasan taas saalan tahay runtii aniga shirarka jaraa'id marka laga soo tago waxaan caadi u tabiyaa barshada ku salaysan arrimaha baarlamaanka u tahay maanta dee baarlamaanka soomaaliya iyo xaaladiisa iyo dabcan maarata shaqooyinka adag ee ka jiro arrimahaas oo dhan baan maarata si toosa u kabargalaya wax dadka ku dhegaysanaya haddii aad u sharaxdid nin suxufi ayaad tahay arag ayaad leedahay dina barnaamijyo telefishin ayaad samaysaa marka gudaha xafiiska iyo barnaamijkaas sidee baa u samaysaa marka ama xafiiskaan joogo ama goobta shaqada oo maarata ay ka jirta aan joogo mar walba waxay ku xiran tahay sida maskaxdeeda ay shaqayso iyo arrintaas ay ula falgasho marka inaan barnaamij soo saaro waa wax aniga waxaa waa arrin ii sahlan oo maarata amba wax culaysa iyo hayn maxaad hiigsanaysaa waxaan hiigsanaya mustaqbalka waxa weeyaan horta in shaqadan horta aan ku fiiriyo oo kaalin muuqata aan ka ciyaaro waayo maanta marka la fiiriyo magaaladan joogo iyo dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay magaca igu filan runtii waa guulayshayna kale laakiin waxaan jeclahay in maarata heerkeyga intaan muufiso inaan noqdo dabcan maarata qof saxafi tariiqda ay wax ka qori doonto inaan ka mid noqdo kaasi wuxuu ahaa saxafi cabdifataax xasan axmed galgacal ku magac dheer oo u waramayey xasan cali gelle weli wararkii dhinaca saxaafadda ayaynu ku guda jirnay koox saxafiyiin gabdha ah ayaa waxa ay dhaliileen si kululna ay uga hadleen markii koox kale oo gabdho saxafiyiina ay muqdisho ku soo bandhigeen cilmi baaris ay sheegeen inay ka sameeyeen soomaaliya ayna ku ogaadeen in qaar ka mida dadka loo shaqeeye ee maamulo warbaahinta ay gabdhaha ku xiraan in ay u galmoodaan haddii kalena aanay shaqo siinaynin weli jawaab kama hayno milkiilayaashaasi warbaahinta soomaaliya hase ahaatee koox kale oo gabdho ah oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ku gacan sayray daraasadii lagu soo bandhigay magaalada muqdisho haddaba arrintan oo dood weyn ka dhalisay baraha bulshada waxaa ka hadashay oo daraasadaasi beenisay nimco cabdi xasan oo ka mid ahayd gabdhaha journalistayaasha ee shirka jaraa'id ku qabtay muqdisho waxaana ay u warantay wariyaha b b c da faadimo macalin abuukar faadumo adigoo aada u mahadsan muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug la sheegay in laga diyaariyey hablaha suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya dabcan waxaa ku qoran qodobo lid ku ah sharaftayaga gabdhaha soomaaliyeed ee meel walbay joogaan oo ay ku jiraan muhiimada saxaafadda waxaa meel looga dhacay dhammaan gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed iyadoo lagu xusay warbixinta in 3 xarumood oo ka mid ah xarumaha magaalada muqdisho sida idaacadda kulmiye goobjoog media iyo universal intaan ka ahayn dhibaatooyin loogu geysto gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed dabcan buuggan markaad eegto sawirada lasoo qaatay 3daas xarumood ayaa lagu ammaanaya oo keliya maadaama loo isticmaalay buugga muqdisho ayaan shir ku yeelanay waxaan kasoo horjeedsanay arrintaas in anaga aan nahay gabdho suxufiyiina muqdisho ka shaqeeya waxaa qabada aana kala kulmin madaxdeeya oo madaxdana na hogaamiso ama maamulada noo ah marka nimco maxaa ka mid ah qodobada aad sida gaarka ah ku diideen cilmi baaristan ku jira faaduma waxaa ku jirto waxaa laleeyahay 13% dadka la waraystay ayaa waxay sheegayaan in shaksi ahaan loo geystay dhibaato galmo oo ay u geysteen madaxda iyaga agaasimayaasha u ah ama xarumaha ay ka shaqeeyaan taana ay tahay sharaf dhac loo geystay gabdhaha soomaaliyeed mana ahan mid aan u dul qaadan karno in hay-ado shisheeye ay noo adeegsadaan in sharaftii
gabdhihii soomaaliyeed ee mihnada saxaafadda ku jiray in lagu bahdilo taana waxay sheegaysaa in hay-ado ama safaarado ay qayb ka ahayd daabacada buuggan oo lagu bahdilayo waxaa inoo soo baxdeen buuggan in ay qoreen rag soomaaliyeed oo mihnada saxaafadda laleeyahay way ku jiraan balse la soo marsiiyey gabdho kale si ay ugu hadaaqaan waxyaabaha buuggan ku qoran laakiin soo maaha arrin jirta in gabdhaha awriyayaasha ah ay la kulmaan dhibaato marka maxaa uga soo horjeesateen haddii la sheegay dhibaatada jirta faaduma dhibaatada aan kala qaadno guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada gabdhaha suxufiyiinta dabcan anaga marka ahaan isku celcelino waxaa dhannaha u maleyna 5% waxaa ku 13 in loo geysto dhibaatooyin dhanka galmada ah marka maxaa soo haray oo keliya qof 2% soo haraysa marka taana ay tahay sharaf aniga nimco ahaan waxaan shaqada bilaabay dabiiqadii 2005 shaqeeya waxa dhibaatada lama kulmo wax la qaybsanaa ilaha aadana ayaa mashii kala diyaarinaa waxaan kasoo shaqeeyay xarumo badan oo magaalada ku yaalo waxaan kasoo qabtay degooyin kala duwan dabcan intaasoo anagoo intaasoo xarumood kasoo shaqeynay marxalado kala duwan aynu soo marnay oo intaasoo dhibaato ku shaqeynaynay marxalado kala duwan marka in maantana la yidhaahdo gabdhihii waxay ku dhaqmayaan arrimahaas oo kale ama shaqooyinkoodii ayaa loogu geystaa dhibaatooyin galmo inay tahay mid wax kama jiraan ah wax waa la qaybsanaa raggeena suxufiyiinta soomaaliyeed nagu sharfaan marka waxaan dhihi karnaa mihnada ka shaqeysa ama xarunta ka shaqeysa ku xiran tahay dhaqaalaha ay naciimo cabdi xasan oo u waramaysay wariyaha BBC-da Faadimo Macalin Abuukar saacadda istuudiyaha daqiiqada ay dhaaftay 5:00 Afrikada Bari waa xilligii aad nooga barateen mar kale inaan idiin dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona balan ka codsada Maxamed Maxamuud Cadde madaxweynaha Mareykanka ayaa xaqiijiyay in uu lacag u eeliyay xeer ilaaliyihiisa Michael Cohen oo hore uga siiyay gabar la sheegay in uu gogol dhaaf la sameeyay gabadhaas ayaa ah jilaa samaysa filimada anshaxumada ah Trump ayaa sheegay in wax lacaga oo loogu talagalay ololaha doorashada inaan loo isticmaalin ujeedadaasi hase ahaatee heshiiska lala galay Stormy Daniels ayaa ah mid meel maraha warta tweetka fariimo badan uu Mr. Donald Trump ku gudbiyay kadib markii uu Rudy Giuliani oo ah nin ka tirsan xubnaha dadka asaga xagga difaaca ama qaanuunka u qaabilsan uu sheegay in madaxweyne Trump uu shakhsiyan jeebkiisa ka siiyay lacag gaaraysa $130,000 oo hore loo soo bixiyay qareenkiisa ururka xag jirka ah ee Bask ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan ETA ayaa xaqiijiyay in ay ururkaasi kala direen taasoo soo afjaraysa 10 sano oo ay u dagaalamayeen xurriyad ay ka qaataan waddanka Spain bayaan ay ETA soo saartay ayaa lagu sheegay in ururkaasi la kala diray isla markaasna la soo afjarayo dhammaan howlihiisa siyaasadeed ilaa iyo 100 qof ayaa ku geeriyooday dabaylo watay boor oo ka dhacay waqooyiga waddanka India qaybo ka mid ah gobolka dhimashada badan ay ka dhacday waa Uttar Pradesh saraakiil ayaa sheegaysa in ay tahay dabayshii ugu xumeyd ee waddanka Hindiya ka dhacda dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegayaa inay guryahooda hurdeen guryuhuna ay soo dumeen shirkadaha dahabka qoda ee dalka Koonfur Afrika ayaa saxiixay heshiis taariikhi ah oo magdhow lagu siinayo kumayaal kun oo shaqaale ahaa oo dahabka qodi jiray oo la sheegay in cudur uu ka asiibay sanbabada waa tilaabadii ugu horeysay oo noocaana hase ahaatee waxa ay u baahan tahay in maxkamadda sare ee magaalada Johannesburg ay ansixiso hogaamiyaha ururka halka aan ku celiyo hogaamiyaha waddanka Armenia mucaaradkiisa Nicole Pashinyan ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu ballan qaaday inuu taageerayo waxa uu ku tilmaamay musharaxa ay dadweynaha u doonayaan in uu helo jagada ra'iisul wasaarnimada qofka uu ka hadlayo waa asaga baarlamaanka ayaa la filayaa in maalinta talaadada ah inuu u codbixiyo arrintaasi halkaad warkaas ka dhegaysanaysan waa BBC London maxamed maxamuud cadde aad buu mahadsan yahay bal markana aan dib ugu laabanno wararka Soomaalida Istanbul dalka Turkiga waxaa ka soconaya shir ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya
waxaa ka qaybgelaya ganacsato labada dal ah oo wehliyo wafdi ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Sanadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay xiriirka ganacsi ee labada dal. haddaba Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah xogayaha golaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed oo shirkaasi Istanbul ka qaybgelaya ayaan telefoonka ku weydiiyey cidda shirkaasi ka qaybgelaysa iyo ujeedooyinka shirka. shirkikan wuxuu ku saabsan yahay in ay ganacsatada labada ganacsato ay ka wada hadlaan arrimaha xagga ganacsiga, maalgashiga, xagga horumarinta mataqaan teknolojiyada iyo xagga suuqgeynta. isla markaasna waxaan ganacsatada Soomaaliyeed aan doonaynaa in loo helo suuq wax soo saarka iyo badeecada laga soo saaro dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wax soo saarka xagga beeraha iyo kalluumaysiga intaba. waayahay arrimo waaweyn baad ka hadashay oo xagga ganacsiga teknolojiyada ah. Soomaaliyana waan ognahay oo xaaladeeda amni umuurahaasi ma saamaxayaan. Marka ma isleedahay arrimahaasi in haatan laga hadlo waa degdeg? ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo inkastoo marxalad adag lasoo maray, marxalad adagna hadda lagu jiro, ganacsiga Soomaaliyeed macnaha marna ma istaagin, wuuna socday. hadda tusaale haddii la yidhahdo xagga telecommunicationka Soomaaliya qaaradda Afrika waxay ugu jirtaa safka ugu horeeya. xagga mataqaana isticmaalka lacagta lagu dirsado mobileka adduunyada Soomaaliya marwan ayay noqotay. marka Soomaaliya iyadoo marxalad adag lagu jiro, marxalad adagna lasoo maray, marka la fiiriyo xagga dadaalka laga sameeyey xagga horumarka iyo teknolojiyada dalka Soomaaliya, ha noqoto isgaarsiinta, ha noqoto xagga xawaaladaha iyo xagga ganacsiga intaba runtii wuxuu gaarsiisay meel aad iyo aad u wanaagsan. haddana waxaa la rabaa in xoog la saaro xagga wax soo saarka si dhaqaalaha loo xoojiyo. waayahay marka bal cidda ka soo qayb gashay ma ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa u badan mise dhinaca dawladdana wufuud ayaa ka socdo? dhanka dawladda dabcan wafdiga ka socdo oo wasiirka ganacsiga socdo, gudoomiyaha guddiga ganacsiga ee baarlamaanka socdo, xildhibaano ayaa socdo. dhanka ganacsatadana dhammaan way joogaan, gudoomiyaha guddiga ganacsiga Soomaaliyeed, ku-xigeenadiisa, maamulka guddiga ganacsiga, madaxda shirkadaha waaweyn sida shirkadda Hormuud Telecom, gudoomiyaha Salaam Banki, gudoomiyaha shirkadda energy ugu weyn dalka Soomaaliya ee la yiraahdo Beko, iyo dhammaan manaha qaybo kala duwan ayaa socdo kamid ah businesska Soomaaliyeed. ururka xawaaladaha Soomaaliyeed ee leeyihiin ayaa kamid ah, shirkadaha kalluumaysiga ka shaqeeya ayaa kamid ah, shirkadaha wax soo saarka beeraha kamid ah. waxaa halkan ugu soo bandhigay wax soo saarka beeraha sida mooska, liinta iyo kalluunka. ugu dambeyntii maxaa markaa natiijo ah oo laga filayaa shirka? natiijada ka soo baxdase in ay dhaqan gasho oo ay dhaqangal noqoto, rajo nooca ayaa ka qabtaan? wallahi horta waxyaabaha la rabo shirkan ay ka soo baxaan waxaa weeye in laga dejiyo qorshe lagu hawlgalayo dhammaan dhinacyadaas laga wada hadlayo, oo haddii ay noqon xagga macnaha maalgashiga, haddii ay noqon xagga horumarinta teknolojiyada, haddii ay noqon lahayd xagga mataqaana wax isdhaafsiga. sidaa daraaddeed heshiisyo ayaa kasoo bixi doona. heshiisyada waxaa loo saari doonaa guddiyo dabagala inay fulaan. ayagana way ballan qaadeen dhankooda inay arrintaas ay ka shaqaynayaan. annaga hadda ganacsiga Turkiya aan la leenahay inta badan waxbaan kasoo dhoofsanaa. marka waxaan rabnaa arrintaas in aysan annaga aan noqonin suuq keliya ee annagan aan suuq helno. arrimahaasna waxaa la rabaa marka inay kasoo baxaan qorshooyin la rabo in lagu horumariyo dhankaas mataqaana suuqgeynta oo dhankeena ah si dhaqaalahan loo xoojiyo. waxaa laga soo saari doonaa heshiisyo ay la rabo in la fuliyo labada dhinac intaba. guddiyo dabagalana waa loo magacaabi doonaa. kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka igu waramayay goor sii horeysay isagoo jooga magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. isla qodobkaasina dhageystayaasha Facebooka ku soo dhiibtay aragtidooda waxaa ka mid ah Bashka Cadde Xasan Faarax oo isagu jooga magaalada Muqdisho. waxa uu leeyahay shirka uga soconaya magaalada Istanbul ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga waa mid la soo dhaweeyo, waxaana halkaasi ka cad in xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uu sii ballaaranayo maadaama ganacsatadii labada dhinac ay dhex marayaan shirar iyo heshiisyo labada dalna faa'iido u leh. maxamed axmed bulaale oo jooga Taleex ayaa waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa shirkaasi ganacsiga Istanbul uga furmay Soomaaliya iyo Turkiga. Turkigana waa dal si fiican u caawiyay Soomaaliya, mudanna in xiriir fiican oo dhan walba ah lala yeesho. kuwaasina waxay ahaayeen dhageystayaasha dhanka Facebooka iyagoo aragtidooda ku soo dhiibanayay. waagaag halkaad weli naga dhageysanaysaan waa BBC. dowladda Suudaan ayaa waxa ay qaaday tallaabooyin tashiil dhaqaale ah oo markaasi ay haatan go'aansatay inay xirto qaar ka mid ah safaaradaha dalalka dibadda uga furan. wareegta ayuu amarkaasi ku bixiyay madaxweynaha waddankaasi Al-Bashiir. siyaasiyiin iyo dhaqaalayahano reer Suudaan ayaa sababta ku tilmaamay dhaqaale xumo. warbixintan waxaa soo jeedinaysa Faado Macalin Abuukar.
madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa amray xiritaanka 13 howlgallo dibadda ah iyo dhimidda shaqooyinka wasaaradda arrimaha dibadda sababo la xiriira xasaradaha dhaqaalaha. wakaaladda wararka dalkaasi ee Sona ayaa warisay in arrintan looga gol leeyahay dhimidda qarashka iyadoo dalkaasi xaalad dhaqaale uu ku jiro. waxay wakaaladdu intaa ku dartay in diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ay qabsan doonaan howlahooda maamulka iyadoo dhammaan kooxdii maamulka shaqada laga tiray. go-aankan ayaa imaanaya kadib markii wasiirkii hore arrimaha dibadda Ibraahim Ganduur uu sheegay in diblomaasiyiinta Suudaan ee dibadda aanan mushaar la siinin muddo bilooyin ah ayna doonayaan inay Khartoum ku soo laabtaan. balse Ganduur loogama mahadcelin digniintaas ee taa beddelkeed madaxweyne Bashiir ayaa shaqada ka tiray. dhaqaalaha Suudaan ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo intii ay kala go-een Suudaanta Koonfureed iyadoo uu taasi ku waayay 75% dakhligii ka soo geli jiray saliidiisii waxaana haatan Suudaan uu wajahayaa gabaabsi dhanka lacagta qalaad ah. faado macalin aad bay u mahadsan tahay. warar kala duwan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin daadadka ka dhashay oo ka dhacay dhulka Soomaalidu degta ee Itoobiya iyo ciyaarihii ayaa goordhow inoo soo socdo balse haatan England waxaa ka soconaya doorashada dowladaha hoose iyo maayarada magaalooyinka. waa tijaabadii ugu horeysay ra'iisul wasaare May wixii ka dambeeyay markii ay qabatay doorashadii ay waqtigeeda ka soo hormarisay sanadkii hore ay ku guuleysan weyday in ay aqlabiyad weyn ay ka hesho baarlamaanka. London ayaa waxay ka mid tahay meelaha loolanka weyni ka dhici doono oo la saadaalinayo in degmooyinka xisbiga Conservative-ka uu muddo dheer xukumayay ay gacantooda ka bixi karaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa istuudiyaha la fadhiya waxa uu soo maray dhowr ka mid ah goobahaasi codayntu ay ka socotay ee magaalada London. Cabdixaafid aad baad mahadsan tahay. intee golo deegaan iyo duq magaale ayaa la dooranayaa jawigu sida oo maanta? aadan Salamiin aad ayaad u mahadsan tahay. horta xildhibaanada u tartamaya golayaasha deegaanka way badan yihiin waxaanay badankoodu la odhan karaa waxay ka soo tartamayaan labada xisbi ee waaweyn xisbiga talada gacanta haya ee Conservative-ka iyo xisbiga shaqaalaha oo sida aad sheegtay iyagu doonaya kuna dadaalaya in ay kuraasi badan ay ka helaan xisbigan iminka talada ku haya. doorashadani waxa ay muhiimad gaara u leedahay ra'iisul wasaaraha dalkan iyo waliba dowladda dowladda dalka xukumaysa. 7 subaxnimo ayay Salamiino albaabada loo furay goobaha laga codeynayay ilaa caawa 10 fiidnimana way soconayaan oo maadaama ay tahay maanta maalin shaqo. guud ahaan jawiga ayaad weydiisay. jawiga inkasta oo aan meelaha aan tegay dadku ay iska shaqaysanayeen oo iska soconayeen oo ay hawlahoodii caadiga ahaa wataan haddana goobaha laga codeynayo aad ayay u buuxeen. waxaan tegay degmada Tower Hamlets oo ku taalla bariga magaalada London gaar ahaan xaafadda Bow oo ka mid ah deegaanada ay jaaliyadda Soomaalidu ay ku badan tahay. markaad fiiriso qaabka codayntii u socotay laba dareemayo dadku iyagoo shaqaysanaya ayay haddana codkooda dhiibanayaan miya? dabcan dalkan saad og tahay Salamiin waa dal horumaray noloshii caadiga ahayd dhinac bay ka socotaa dadkina iyagoo hawlahooda wata ayay soo codaynayaan. waqti fiicanna way haystaan oo ay ku codayaan saan ay ku sheegay ilaa 10 habeenimo ee caawa ayaanay goobahaas furnaanayaan. doorashooyinkani waa doorashooyinka dhexe oo 2 sano kadib waxaa dhacaya kuwii guud haddii aanayba ka soo hormarin oo dowladdu aanay ku dhawaaqin. marka natiijadani soo bixi doonta caawa maxaad isleedahay markaasi way ka dhigan tahay? waxay ka dhigan tahay sidaan horeba kugu sheegay natiijada iyo doorashadani waxay muhiimad gaara u leedahay xisbiga talada haya. haddii maanta kuraasi badan oo qaarkood ay hore u xukumi jireen laga guulaysto taas waxaa la odhan karaa waxa ay saansaan iyo calaamad u noqon kartaa in doorashada weyn ay khatar ku sugan yihiin amaba laga guulaysan karo. ta kale waxaa Salamiino iyaduna xusid mudan in iminka jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkan Britain gaar ahaan magaalada London aad moodo in sanadba sanadka ka dambeeya ay ka soo wanaagsanaanayaan oo ay doonayaan inay ka muuqdaan saaxadda siyaasadda. maanta waxaa la kulmay laba dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed inan ka mid ah oo la yiraahdo Aamina muddo dheer ayay ku soo jirtay saaxadda siyaasadda oo ay golaha deegaanka ay hore u soo tarsantay oo ay ku guuleysatay xisbiga shaqaalaha ay ka sharaxnayd. waxa kale oo isagana la kulmay wiil Soomaaliyeed oo xisbi isaguna madax bannaan ka tartamayay isla xaafad ayay ka tartamayeen. wiilka Soomaaliyeed tusaale ahaan isagu wuxuu yidhaahdo dadka Bengooliga ah dadka cadaanka ah ayaan ka sugaya codkayga ka raadsanaya. sidoo kale inta Soomaaliyeed dadka meesha jooga oo dhan ayada lafteeda isku haleynayay. dadka qaar waxa ay leeyihiin waa laga fiicnaa in 2 qof oo Soomaaliyeed oo 2 xisbi
ka kala sharaxan ay isku goob ka tartamaan laakiin dadka oo badan awgeed iyo inay kala duwan yihiin oo iminka aamino oo kale xisbiga shaqaalaha ay ka tirsan tahay xisbigii baa taageeraya ka dambeeya inankana nasiibkiisu leeyahay oo xisbi isaguna iminka waxoogaa dhowr sanaa jiray ayuu ka tartamaya laakiin siyaasaddu waa mabda iyo ideolojiyad markaa qof kastaahi marka la yimaado dalalka horumaray ee dimuqraadiyadda ah laba walhala ayaa laga yaabaa inay kala codayaan inay laba xisbi u kala codeeyaan laakiin waxaad ogaataa Salaamin in dadkan doonaya inay galaan saaxadda siyaasadda ee doonaya inay ku biiraan golaha deegaanka ahmiyadda iyo muhiimadda ugu weyn ee meeshan ku tagayaan waa inay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool deegaankaasi caawiyaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee looga baahay in ay ka caawiyaan waxa ka mid iminka sidaynu ka warhayno sanadkan waliba iminka ku jirnay 2018 dhibaatada soo wajahaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa aad u badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo weerar badan oo aan hore u jirin isu geysata iyadoo midiyo la isticmaalaya xaaladuna ay meel adag marayso marka dhalinyarada sidii loo jihayn lahaa sidii waalidiinta loola shaqayn lahaa sidii jaaliyadu guud ahaan iyadoo isku duuban ay u wada shaqayn lahayd codkooda muuqan lahayd ahmiyadda ugu weyn uga qayb galayana waa taas way ugu dambeyntii goorma iyo codbixintu ay soo gabagaboobaysaa natiijadiisa la filaya kulle ilaa caawa 10 habeenimo ayay furan yihiin goobahan laga codeeyaa wadankan waa kulle waa wadan in badan wax laga dooranayay waqti dheerna ma qaadan doonto maasanid cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu ahaa oo istuudiyaha igu warramayey dalka Itoobiya siiba dhulka Soomaalida waxaa aad looga dayrinayaa dhibaatada fatahaadu ay ku yeelatay laba magaalo oo waaweyn oo kala ah Qabri Dahro iyo Mustaxiil dadadkii ka dhashay roobabkaasi ka daay magaaladaasi ayaa boqolaal qof ay guryahooda ka qaxeen wariyaha BBC-da Faado Macalin Abuukar ayaa waxay ka wareysatay Cabdullaahi Cumar Maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka Qabri Dahro iyo badan oo fatahaada yimid magaalada Qabri Dahro joogana dad fara badan bay dib u dhiibteen wax dad oo hadda dhintay kama warqabo laakiin hanti fara badan iyo guryo iyo iskuulo dumay iyo barakac fara badan baa jira waxyaabaha ay dhibaatada u geysteen waxaa ka mid ah meel bakhaar weyn oo dawladdu ay dhistay oo dawladda kaydka ah oo 3 gobol ay tiilay gobolka Gudey iyo gobolka Doolo oo Wardeen iyo gobolka Qorraxay dawladda la dhigi jiray oo dawo kaydku ay tiilo 3 gobol ay ka qaadan jireen biyihii baa galay xasaare badanna waa geysteen waa tahay goorma ayay marka biyahan magaalada ku soo fataheen fatahaadu waxay bilaabatay 24 saac bay haysatay si toos ah waxaad tilmaan ka bixisaa Qabri Dahar iyo sida roobabka iyo fatahaada uu ugu nugul yahay hayo dhulku qaybana waa caramadow oo waa meel hoose oo nugul qaybana waa buuro marka tiga faafaneed iyo jarar labada tago isku soo dara yaa mara meesha magaalada Qabri Dahar xagga barigeeda ah oo ku dhegan magaalada marka wuxuu xaar oo dadka dowladda ah mooyaane wixii xakamada oo dhan waa dhul hooseeyo oo biyo marka soo fatahaad ay leeyimaadaan ay dhibaato u geystaan oo galaan weyn waa dhulka sidaa u kala koreeyo qayb hoose iyo qayb kore weyn waana tiga faafaneed iyo tirar oo isku soo daray oo galbeed ka yimid macnaha xagga waqooyiga ka yimid marka u dambaysana wadiga ku daraba dhul fara badan oo ay sii maraan oo biyo qabatada oo tigaas uu maro oo caramadow oo aad u hooseysa weeye hadda degmooyinka ay dhibaatada u geysteen waxaa ka mid ah dhowroweyn meel la yidhaahdo iyaduna way barakacday sideedaba oo xagga koonfurta hadda magaalada Qabri Dahar oo lagana xukumo gobol ahaan u hoos timaada lafteedu fatahaad fara badan dhowr boqol oo guri sida hadda shalayta warkeeda aan ku haynay oo biyahan xalay uu kuwa kasii badan ba ay ahaayeen yaa iyaguna fatahaadaasaa ku dhacday marka meel allaala meeshii u dhow caramadowda labadaa tago isku soo daray ay maraan kulligeed waa meel hooseysa biyahana u nugul mar kastabana fatahaadu markay timaado dhibaato ay geysata wey waxaad ii sheegtay in magaaladu ay u nugushahay fatahaad marka roobab ay da'aan marka gobolkana roobab ayaa ka da'ayay muddooyinkii ugu dambeeyeyba dadku ma ka sii warqabeen oo ma filayeen in fatahaadan ay dhacdo taas wax ilaahay la jiran weeye oo roobku xilligii la heli jiray yaa la helay oo weliba uu ka soo hormaray hadda sanadkan dadku abaaro fara badan baa soo maray oo isugu xigay aad marka waxaa loo xiiseynayay roobabkan roobab aad u fara badan oo lagu naaxay oo lagu qaboobay oo xooluhu ay ka dargeen oo ciddii wax tabcan kartaa ay ka tabcatayna waa ka da'een fatahaadani waa nooc masiibaha marka dhulku hadda waa barwaaqaysan yahay oo fatahaadani mid mooyaane wax dheef oo saasay kordhinaysaa ma jiro marka diyaargarow kale lama ahayn dadka abaar fara badan oo dhowr sano isxigtay oo dhulkii iyo xoolihii cawskii ka dhammaaday oo xoolihii ay dhammaadeen oo xaggaa waqooyiga xataa xoolayoodii loo kaxaystay yaa ka jiray markaa dadku aad waxay u soo dhaweynhayeen oo u xiisaynhayeen roobabka ilaahay uu keenahayo aad bayna ugu farxeen markii hore
laakiin fatahaaddan wax diyaar garoowa dee dadka saad og tahay dawladda baa wax diyaar garaysa, dadkeennuna waa dad dib u dhacay oo aan la haysanin nidaamka iyo dhulku uusan u qiimaysnayn oo meesha sare iyo meesha hoose iyo deegaankeeda dad aan saas u kala qiimaynin weeye. ruux waliba meesha uu soo gaaro iskaga kusahayo. marka mar walba marxaladaasi way iska jirtaa, diyaargarow fiican ma jirin, waana ta keentay inay biyuhu dhibaato u geystaan oo deegaankii aqala duniyaan oo masquula duniyaan oo waa ta keentay weeye. diyaargarow saas ma jirin. cabdulaahi cumar maxamuud oo u waramayey faadumo macalin. magaalada mustaxiilna kumanaan qoys oo ay horay uga qaxeen magaaladaasi oo biyo fadhiyaan ayaa dhibaatooyin lasoo sheegaya, waxaana dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen daadadkii halkaasi iyo roobkii ka da-ayay ee lixaadka lahaa ee ka da-ayay, waxaana ay sii adkeeyeen duruufaha nololeed ee reer mustaxiil. waxaana umuurtaasi ee wariyaha magaalada jigjiga cabdinaasir xikam uga waramay axmed beder oo marka hore weydiiyey bal wararka ugu dambeeyey ee degmada mustaxiil. dhowr iyo soddon beri ka hor ayaa degmada mustaxiil biyo fatahaadii oo webiga shabeelle uu keenay ay soo galeen. markaas degmadu waxay isku dayday inay biyahan iska caabiso oo iska moosto oo iska xidho. ilaa 3-4 maalmood ayaana buunka la afuufayey oo dadka soo baxay lalahaa oo jawaano casho ku jirta la waday oo la isku dayay in biyahan la xidho. laakiin 3 maalmood kadib ayay arkeen biyahan inay ka qabow badan yihiin. markaas kadibna waxaa loo kala jabay labada buurood ee dhinaca bari iyo dhinaca galbeed magaalada ka kala xiga. dabcan horey ayay wixii beer ahaa biyuhu usii qaateen. wixii lagala baxay ee baqaarada ku jiray ee raashin ahaana markii dambe waxa lagala baxay ma badnayn. marka dadku waxay aad ugu dadaaleen uun oo awoodooda ay saareen inay naftooda iyo arwaaxdooda ay la baxaan. markay dadku biyihii ka baxeen ee buurihii ay tageenna wax raashin ah oo ay meeshii la tageen oo badan ma jirin. wax dambe oo loo geyn karina ma jirin oo waa go'doon oo wax ka bixi kara iyo wax soo geli kara midna buurahaas ma jiro. biyihiiba meel walba haatan ka hor fadhiyey. cabdinaasir, magaalada mustaxiil waayadii hore ma sidan oo kale ayay biyaha ugu soo fatihi jireen webiga mise waa wax ku cusub? axmedow, ereyga mustaxiil dad badanna waxay u turjumeen inuu yahay nin caraba ayaa markii degmadani degdegaysay buu yimid bay dhahaan. kusaa fiiriyeyna waatay meeshii goda oo webigiiba ka koreeyeen wuxuu yidhi in la dego waa mustaxiil, yacni lama degi karo oo waa mustaxiil. saasaaba degmada magaceeda loogu bixiyay bay dadku yidhaahdaan. mar walba oo webigu biyo badan keeno degmadan fatahaad ayaa ku timaada, laakiin waxaa la odhan karaa xilligeeni wuxuu ka mid yahay xilliyada ugu daran. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa hagaag gordha wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda, balse haatan Puntland. roobabka lixaadka leh ee ka da'aya Soomaaliya, mashaakilka kale ee ka dhalan kara waxaa ka mid ah biyaha fariista oo caafimaad xumo ay ka dhalato. deegaanada Puntland ee roobabka mihigaanka ay ka da'een ayaa durba dhaqaatiirtu waxay bilaabeen inay dadka uga digaan halista caafimaad. wariye Axmed Cawli Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi. waa ciyaal da'doodu ay ka yar tahay 15 sano oo ku dabaalanaya toga garowe, kaasi oo xilli roobaadku ay biyuhu ay fariistaan. waxaa dhici karta in carruurtan ciyaar ay ka dhiganayaan, balse caafimaadkooda ay halis gelin karaan. halkani waa goob ku taalla garowe oo biyo ay fariisteen. kooxa dowladda hoose ee u xilsaartay ayaa hagaajin ku wada, waxaana muuqata in biyuhu ay muuqaalkooda isku beddeleen cagaar. sida in badan ay dhakhaatiirtu ay sheegeenna waxaa dhici karta in goobahan oo kale ay ka dilaacaan xanuunno haddii ay nadaafadda aan laga shaqayn. doctor daahir liilan ayaa sharaxaya xanuunnada wakhtiyadan oo kale yimaada. laba noocoo biyaha khatartooday leeyihiin. ciyaalka ku dabaaskuwa magaalada wuxuu waxaa weeyaan togaasoo hadda qashin ka buuxo og adagtay garowe ama magaalooyinka. ciyaalkuna
xanuumadan soo sheegnoo dhan bay ka qaadi karaan oo ah ama xanuunkaas maqaarka ha ahaato ama xanuunkaas shubanka ha ahaato oo kala noocnooc ah xataa riski waxay u geli karaan in ay ka qaadaan xanuunkan maaragtay daacuunka taxadar baa loo baahan yahay carruurta in laga celiyo dadka deegaankooda inay nadiifsadaan biyaha dhulka risanaya in drainage lagu sameeyo oo ay socdaan in dadka looga digo biyaha aan chlorine lahayn ama aan treatment of chlorine lagu samayn ama aan biyihii la karkarin carruurta yaryar oo 5 sano ka yar inaan la siin. guud ahaan magaalooyinka puntland xilliyada roobabku ay da'aan waxaa jira meelo ay biyuhu fadhiistaan kuwaasi oo caafimaadka iyo isu socodka gaadiidka dadweynaha saameyn ku yeesha. in badan oo ka mid a dadka waxay aaminsan yihiin in qaabka magaalooyinka ay u dhisan yihiin aan laga fakerin sidii biyaha magaaladu ay uga bixi lahaayeen. waxaa dhacda in dad badan ay dhisteen meelo biyuhu ay mari jireen kuwaasi oo magaalada ku yaala kadibna waxa ay sababtaa in ay magaalada ay biyuhu ay ku soo faafaan. injineer cali xaaji cabdulle ayaan weydiiyey sida arrimahaasi looga gaashaaman karo. innaga xaaladdeena waa ka duwan tahay magaaladeenu ma lahaan karto sewage program weyn ma lahaan karto sewage waa qaali weeye waa magaalada aragtay oo dhan intii loo qoro kanaal intii loo sameeyo hoos la qodayo ka bacdina bulaacadaha guryaha inuu ku wada jiro dhan la isuda furayo laamiga dushiisana biyihii loogu talagalayo meel ay mataqaana ka galaan ay ka raacaan halkaa. innaga waxaa ila habboon marka hadda in la sameeyo system hadda aan ku arkay dadku ay sameeyaan systemkaas dhibkan u leeyahay. innaga systemkii hore waxaa la iskaga shaqeeyaa iska hore ciid baa reer kastaaba haba islaan kastaaba gurigeeda iridiisa waxay ku shubtaa kaarka ciida. kaarkooyinka ciiddaha waxay keenayaan aakhirka guryihii baa duugmaya say ciidda u dul saarayaan guriga waxaa arkaysaa darashadiisii ay siman yihiin iyo jidkii. waxaa la samayn karayaa drainage baa loo samayn karayaa kanaalayaal baa loo jeexayaa kanaalayaashaas marka loo jeexa biyo bandes waxaa la yidhahdaa mataqaanaa qaab ay biyuhu u dhacaan oo meel ay biyuhu biyadaadiga ay u sameeyaan baa loo samaynayaa. waxaan ila habboon aniga in loo helo biyahaasoo dhan xaafad kwarteer intii loo kala qaybiyo magaalada misaal dhinacaan oo kalena qayb biyuhu daadigooda in loo helo meelay ku shubaan. si kastaba waxaa muuqata in ay hadda goobaha qaar biyuhu ay fadhiyaan welina aan waxba laga qaban ilmuhuna ay ku ciyaarayaan halista dhakhaatiirtu ay sheegeenna ay meesha ay taagan tahay. axmed cawil aad buu umahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo diray. markana ciyaarihii haddii aynu galno kooxda liverpool ayaa waxa ay gaartay ciyaarta finalka ee champion leaga markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2007 iyada oo 7-6 celceliska ciyaartii ay la yeelatay Roma lugtii labaad ku badisay. safarkan oo liverpool ay ku soo gaartay ciyaarta kaba dambaysta ayaa waxa uu bilowday 15 Agoosto iyadoo ciyaartii ugu horeysayna ay la yeelatay kooxda Jarmalka ee lagu magacaabo Hoffenheim. hase yeeshee ciyaartani waxa ay dhammaan doontaa oo kama dambaysta ay dhici doontaa 26 bisha May iyada oo raggaasi ciyaartoyda Jurgen Klopp ay wajihi doonaan kooxda Real Madrid oo 12 jeer ku guuleystay koobkaasi waxaana ciyaartu ay ka dhici doontaa magaalada Kiev. tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu ka hadlay ciyaartii xalay. It's easy to do so with a big compliment for Rome. What a performance, what a comeback, what a brave football game. Jurgen Klopp waxa uu ammaanay kooxda Liverpool waxa uu sheegay inay ciyaareen ciyaar waalan oo ay ku soo gaareen kama dambayska koobka Champions League kadib markii ay 7-6 ay celceliskii ay kaga badiyeen. waxa uu sheegay labada kooxoodba inay ciyaar aad u xiiso badan ay soo bandhigeen oo uu markaasi ammaanay. waxaa la arkayay xalay Jurgen Klopp oo aad u faraxsan oo garoonka markaasi ku salaamaya taageerayaasha Liverpool oo iyaguna aad u faraxsanaa waxaana tani markaasi ay rajaynayaan in koobkaasi ay ku guuleystaan.
kooxdaasi Liverpool waxay 4-2 markii ugu horeysay lugtii hore ay kaga soo badisay kooxda Roma iyadoo markaa ciyaartii xalay ka dhacday magaalada madaxda dalkaasina kaga badisay celceliskii 7-6 dhinaca kale caawa ciyaaro xiiso leh ayaa dhici doona waxa wada ciyaari doona ciyaarta loo yaqaan UEFA ama Europa League ayaa waxa wada ciyaari doona Arsenal iyo Atletico Madrid tababaraha kooxdaasi Arsene Wengerna waxa uu sheegay in uu doonayo in uu si wanaagsan kooxda uga tago oo markaasi uu guul ka gaaro wareega ama lugta labaad ee ay la yeelan doonaan Atletico Madrid guud ahaan barnaamijkeenii dunida maanta oo isku soo dubaraday Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq anigoo aadan Saalamina aan soo jeedinay warkan Maxamed Maxamuud Cadde tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo